soo noqonay kala dawladnimada nagu sabtaan soo celiya وانا بالسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا وكحاول افكر جاليته كنول اما كان دغه في افريقيا ee ku koonfur galbeed meelka lama hawaaw هذا البرنامج يقول سلسلة الشيء تريد تعليم على تريد تعليم معيشة مناشة من الأطوار وهواء المرمى بشكل سامة مركي أنا محاضرة هالقوة ما هذا الماضي أنا هذا البرنامج المقوية تعبكي تطور تعوايا المبيلية أنا مركي على الكوفيد البيت وذا المشارع ملعوينه وذا الملعوينه هو إلى يدك يفضل هاي ميرا جيانة شعبك إلى الهلمان دنقل الديرنا أنا دنقل ديري وأم وقال إني أنا ميكب وعصنا إن شاء الله بإذن الله الكريم سومالي لكم سؤال كلام مني هنا إلي معنا أنتبه من الحوائيان نقول بكم وطنكم حوائيني المحوينيان أنا أباش بعد المحوينيان تلقى إيقار حيطوني لكي بدن بويات إن شاء الله إلهي ميكي ببرياني مدر المحويني إلكي إلهي كي فضاء إلكي إلهي كي بولي ميكي لنا إن شاء الله كي سومالي من عليكي وير كل هذا بدنا نقول سلام الدين مذكر ما أنت كتسمي توامي بكل تلاقي بكورا وين ترتيب سوي هذا ما تقول إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودلكن هذا أن كنا لنا سود أفريقيا إنه كبيحية دبعتها هيستو وحونها مانديلا ninka noocaas ah subax waxa la yiri waxa lagu qodi jiray god niska dambana waa lagu aasi jiray laakiin muunan u joojinin wuu dadaalay juhdi iyo waqti buu bixiyay saasay tahay wuxuu ku guuleystay in bulshadii wadankan ee cadaankii tirada yaraa iyo madowgii dalka lahaa inay ku wada noolaadaan waxa dhacday inuu dalka madaxweyne ka noqdo 4 sano uu maamulo 4 sano kadibna uu diido inuu mar labaad isku soo taaga xilka dalka saasay tahay waxa uu u socday ama uu dadaalayay ama waqtiga uu gelinayay ma ahayn xilka ee waxay ahayd inuu dalkiisa badbaadiyo mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay madaxaaga caawa meel cad ma leh rasuulka waxa lagu yiri laqad shibta waad cireysatay wuxuu yiri shabatani huud wa akhwaatuha huud iyo walaalaheed ayaa cirada iga soo saaray madaxaaga meel madow ma leh maanta hadduu ilaahay kuu qoro oo aad tagto meeshaad u socoto waxaan kugula dardaarmayaa anigoo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed aan weligii arkin dal Soomaaliya oo dawladda ay ka jirto weligii aanan arag madaxweyne Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay ummadaas ilaahay uga cabso raas caseer ilaa raas kamboni raas caseer ilaa raas kamboni waxaa lagu weydiin doonaa faraska ku turaanturoodo waa lagu weydiin doonaa maaha nin qof lagu dilo maaha nin gabar lagu kufsado maaha nin qof lagu dhaco waxaasoo dhan meesha ma yaalaan faras hadduu turaanturoodo waa lagu weydiin doonaa ummadaas ilaahay uga cabso ittaqillah